wareegto amar ah oo ka soo baxday wafdiga golayaasha qaranka uuna maanta saxeexay gudoomiyaha wafdiga ahna gudoomiyaha golaha wakiilada. wareegtadani waxay ku socotaa si toos ugu socotaa guddiga nabadgelyada gobolka. waxay kale oo ku socotaa dhammaan dadweynaha gobolka Sool. ujeedo hubka gaadiidka iyo shirarka si loo adkeeyo nabadgelyada loona ilaaliyo ku dhaqanka sharciga annagoo tixgelinayna tala soo jeedintii waxgaradka gobolka Sool annagoo fulinayna waajibaadka shaqo ee wafdiga golayaasha qaranka ee gobolka Sool ku sugan. waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 23 May 2018 soo saaray amarada soo socda. kow marka laga reebo ciidanka booliska oo keliya waxaa reeban ku siidashada iyo la dhexmarka hubka magaalada gudaheeda. laba waxaa reeban in magaalada lagu dhex maro gaadiid aan lahayn taargada gaadiidka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. saddex waxaa la mamnuucay qabashada shirarka iyo shir saxaafadeedyada aan ogolaansho ka haysan guddida nabadgelyada gobolka Sool. afar cid kasta oo ku tallaabsata falal kicin ah oo kullid ah nabadgelyada gobolka Sool waxaa loo qaadanayaa dambiile. shan ciddii ku xadgudubta amarada ku qoran xubnaha 1 2 3 iyo 4 ee aan soo sheegay ee wareegtadan waxaa laga qaadayaa tallaabada sharci ee ku habboon. lix dhammaan xubnaha guddida nabadgelyada gobolka Sool xubnaha hay-adaha amniga ee gobolka Sool iyo degmada Laascaanood waxaa la farayaa inay toos ugu hawl galaan fulinta amarkan. wabilaahi tawfiiq. sida aad u maqlayseen guddiga gobolka soo timi ee ka kooban golayaasha Somaliland golaha wakiilada golaha guurtida iyo golaha wasiirada amarada aad leedin akhriyay ayay soo saareen waxana hasaba oo dadka laga doonayaa inay ku dhaqmaan wadabadaas diyaar loogama aha kicin iyo abaabul iyo buuq iyo hub iyo wax lala dhex maro magaalada sidaa loo sheegay. haddii ilaa iminka ay dhacaysay maanta laga bilaabo qof walba ha ku talagalo inaan looga dulqaadan doonin ama aan laga yeeli doonin ama inuu iska hadlo ama inuu arrimo caynkaas oo dadka iyo nabadgelyada uu wax ku yeelanayo iyo falal caynkaas oo ku kaco. taasaan dadka u sheegaynaa waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa inay xasiloonidooda inoo ilaaliyaan nabadgelyada inoo ilaaliyaan wixii dalkeena baabi'iyay halkaa gaarsiiyey inaynu ka waantoono oo aynu ka digtoonaano oo aynu dib uga noqono. intaasun baanu guud ahaan soo jeedinaynaa. waxaanu u nimi sidii aanu nabadgelyada u xasilan lahayn, sidii aanu horumarka uga shaqayn lahayn, sidii aanu dalkeena wanaagiisa u horumari lahayn baanu halkan u nimi in lagala shaqeeyo ayaa loo baahan yahay. hubka ciidamada qalabka sida mooyaane halkan waxaa ku qoray booliska ciidamada qalabka sida u baa qaadan kara hub. cid kale oo hub laga yeelaya in qof walba ogow qofkii lagu qabto hub isagoo sita hubkana waa laga qaadayaa wixii dambi ay u mutaystayna waa lagu qaadaya lagama yeelayo. marka qolada sharciyada faahfaahin doonta arrimahaas sidaa in loola socdo ayaan doonaynaa. aad baanu dadka waxaan uga codsanaynaa in nabadgelyada la ilaaliyo, in lala shaqeeyo maxaa dhammaan hay-adaha amniga iyo madaxda dawladda iyo wax alaaliyo wixii danta dalku ay ku jirto ciddii wax ka qabanaysa in gacan la siiyo ayaan dhammaan dadka codsanaynaa. asalaamu calaykum.
waxaan salaamayaa saxaafad waxaanu doonaynaa waxa weeye saxaafaduna inay nala shaqayso oo nagala shaqayso amniga haddii magaaladu kacdo saxaafad ma idin qudhiiri noqon maysaan guryahaad uga soo tuurtaan tallaaye waxa weeye waa dembi waxaanu doonaynaa inaynu gobolkeena hormarino inaynu nabadgelyadeena ka shaqayno war saxaafadeed baa puntland soo saartay iyagu waxay yidhaaheen ninkii somalilan la shaqeeya waa dilin annagu dadka iyaga odhan mayno waa dilin laakiin waxaanu doonaynaa waxa weeye inaad nagala shaqaysaan nabadgelyada gobolka puntland deris baynu nahay rabadaan baa lagu jiraa iyagana waxaan ka waaninaya waxa weeye waa rabadaan bisha rabadaan inay dadka dhiigooda ayaan ku soo degdegin awaamiirtan ay bixinayaan leeyihiin ninkii la shaqeeya waa dil annagu idin dili mayno laakiin waxaanu idin weydiisanaynaa inaad la shaqaysaan gobolka amniga ka shaqaysaan waayo saxaafaddu dadkana waa kicin kartaa waana dejin kartaa marka saxaafadda waxaan ka codsanaynaa waxa weeye daraad way dhacday wixii daraad dhacay dib ugu noqon mayno laakiin maanta wixii laga bilaabo waxa weeye waxaanu doonaynaa inaad nala shaqaysaan oo amniga annaga waxaan noo daraynaa amniga gobolka aynu ka wada shaqayno gobolkaad u wada dhalateen gobolkaad ka mid tihiin haddii dhibaata ka dhacda idinla joogi maysaan marka waxaanu doonaynaa inaad nala shaqaysaan warkaasina siduu yahay aada u faafisaan waa amar amaamir kalena waanu soo saarina haddii ilaha yira intaanu joogno marka aada iyo aad baad u mahadsantihiin waa idin salaamanaa